siyaasadaha isdiidaya ama aragtiyaha kala duwan ee aanu kala qabno nooma diidayaan inaan hore u soconno. siyaasado badan baa imaanaya, waxay u baahan tahay in loo dhabar adeego. waxaan rabnaa haddii ilaahayno maxaa dadkeenna dantiisa ah ayaa saldhig u ah mar walba annagoo ilaalinayna danta guud ee Soomaaliya iyo midda geyiga ee guud ahaan geeska Afrika. laakiin haddana miisaska siyaasadeed marka la fadhiyo mas'uuliyiinta Puntland idinkay inagu matalaan. wixii aan Puntland u cuntamin macnaheedu waxa way waxaan Soomaali u cuntamin wax gaar ah oo Puntland aan gaar dadkeeda ugu doonayna male. laakiin aragti siyaasadeed aan isleenahay ama Soomaali danteeda ku jirtaa weeye waxaan mar walba ka hadlayno. 3 sano ka hor markaan diidanayn golaha wada tashiga qaranka dad baa nala yaabanaa. laakiin golihii wada tashiga qaranka xalay waa kaas meesha aan diidanay halkaas wuxuu isu bedelay maxaa la dhahaa xisbiga cadaaladda. war ilaahay xataa laga xishoon maayo ma cadaaladda haddii jirto midaan dhulkii qabuuraha la iibsan lahaa. bal cadaaladda soo socota see u ekaan doontaa ya cadaaladda hadda aan aragnay midda kaleoo soo socota see u ekaan doontaa. wadajirka hadda la sheegaya xaggee jooga dalkiiba waa la kala irdheeyey ya golaha soo saaray in Jubbaland la burburiyo miyaa wadajir ka shaqaynaya ya wadajir kama shaqaynayo cadaaladna kama shaqaynayo.